السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلام دمان أصحابتي إذا خالقة أصحابتي أنا خالقة السيتين مفيعنتين من نبض قبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا سودة دواذا خير إيه فرحة لسودة دواذا مال والبود دونك كجوكتان وماما وانا إيه مركلة صاحبة خالقة يو ما شاء الله كسودة دواذا الضبيبي يتذال welcome haddaa nagu cusubtihiin soo dhawaada mar walba dad cusub aa noo yimaado maasha allah saaxiibadeena hore adinkuna soo noqda adinkoo nabada soo dhawaada hayehe khayr iyo farxadan ilaahay noo wada weydiiye dhammaan saa idiin sheegaba maasha allah barnaamijyada tartiibaa loo kala dhigdhiga I hope inaa wax ka fahantaan ama waxaa ilaahay ka rajeynaa inaa wax ka fahantaan waxaa ka faa'iidaana khayr allah idinkaga dhigo waa support ka socda dabiib iyo dadaal iyo daryeelka qaaska iyo maamo waano maasha allah soo dhawaada farxad la soo dhawaada hayehe maanta waa dhiirigelin kale ee caafimaad maasha allah awlaada ilaahay baa bixiyo xaaji muxuu waa la dhiirigelinaa xaaji micee la dhiirigelinaa dabiib iyo dadaal maxaa ku taqaaneen yaa dabiib iyo dadaal maxaa ku taqaaneen ilaahay ana siiyo daryeel wanaagsan khayr allah idin siiyo dhammaan ducadiina qaaska waa arkaa intaan ishaleelnay khayr allah idin siiyo intaanan ishaleelinne iswaraabis wanaagsan waa idinka qabaa jazaakallah soo dhawaada haddii aad kheylo yar maqashaan banaanka bisadaa xoogaa sheekaysanayaan marka ila gara waa hawsha background noise haddaa maqashaan soo dhawaada khayr iyo farxada ilaahay noo wada weydiina aniga alxamdulilah waa fiicanahay waxaa la yiri ubaxaan la waraabin ma nuuro hayehe nuur calaa nuur xaalkiina ka waramo ilaahay waxaan ka rajeynaa qof walba wixii uu khayra inuu si sahlan saqiran ku helo insha allah soo dhawaada waxyaabaha la iska waraabinaa waa taqaaniin waa caafimaadka oo dhan qaas ahaan dhanka fertility-ga iyo owlaad raadinta owlaad isku diyaarinta ilaahay waa bixiyee marka saaxiibayaal oo soo dhawaada soomaaligana hadduu jireeyo ee caawiya ila soo celceliya halkaa fadhidaan waa dabiib iyo dadaal kusoo dhawaada halkaan fadhino waa dabiib iyo dadaal hadduu kugu cusub yahay channelka nala fariiso faahfaahin iyo hadal la jiijiida oo tartiib laysku fahansiinayo ayaa loogu talagalay halkaan in laga soo daayo oo aanu imaanay weliba waxaan u imaanay halkaan channeladeena kale aan uga soo leexanay ama channelkeena maamo waano inaan bal halkaan soo marno wadadan yartaa quruxda badanna inaan wada marno waa wadadii dabiib iyo dadaal ama journey trying to conceive ama uur qaadista ilaahay baa bixiyee amuuraha khayr allah ka dhiga saaxiibayaalow soo dhawaada noo soo dhawaada khayr iyo farxad la soo dhawaada waxaan jeclaa walaalaha dhaho maasha allah maamo waano waxaan faa'iide xoogaa waa fikire maskaxdaan ka shaqaysiiye waa isku hagar baxaa xaajiga waa ogaadaa iyo noocyo badan nin walba wuxuu cunoo ciidamiyaha layiri cuntooyinka waad aragteen aan u malaynaa qaarkood nafaqada ay xambaarsan tahay waxaas uma wax kaa maqan sax marka aniga si qaasa iyo si private aan dadka kala shaqeeya arrimahooda marka waxyaabaha u tilmaamayane waa wax dabiici ah hadday dawo tahayna waa dawo dabiici ah insha allah hadday tahay wax kaloo lagala dardaarmayo saa yeel la leehayna waa wax wada dabiici ah ilaahay dawaha ku daro qofkii daneynaya nambarada soo xiriiri cod ku reeb whatsapp ahaan insha allah waa kula soo xiriira ogaada dumar basaan la shaqeeyaa rag lama shaqeeyo marka meeshaa joogtid iyo magacaaga sheeg iyo danta aad leedahay ama arrimo aad jeclaa lahayd inaan kaala shaqeeyo hadduu ilaahay yiraahdo marka barnaamijka maanta inoo wado waa barnaamij muddo igu soo noqnoqonayay waana qiyaasi kartiin arrimahan dad badan oo quseeyaan dadka aan u jawaabayo maanta insha allahu khayr waa dadka tirada 40 ka da'aroon welina daneynayo ilaahay baa bixiye inay ilmo dhalaan waa run ilmaha ilaahay baa bixiyo ibni aadan ma haayo marka waxaas la isweydiiyaa talo 40 marka la dhaafo uur qaadistu waase jaaniskeedu waase waayo dayro badan aa daba taagan 40 plus and trying to conceive
marka waa la qaadi karaa oo waa la dhali karaa oo markaasayba sheekada dhanba kuu bilaaba kartaaye laakiin bal inaa wax fahantaa horta ka horeyso. dad yaryaray ku adag tahayna waan aragnay, dad waaweyn ilaah weyna waaxiday ku adag tahay arrinka waan aragnay, dad iska meel dhexaadane waa aragnay, dad intaba ay u wada sahlantahay waan aragnay. marka ilmaha ilaahay baa bixiya, da-da kuma xirno. afcourse caafimaadkiina waa wax muhiima inuu meesha soo galo. marka maanta gabdhaha kaliix maaha cidaan la hadlaayo, raggana waa la hadlaaya insha allah. marka gabaray dhegayso, haddaad u malaysay cilada inaa keligaa tahay laga yaabo inaadan ahayn oo xaaji macow asigana dhoodhoojis rabo. marka taana ka fikir waayo. anigu waxaan arkaa dad badanoo okay ah, caadadooda helo wax walba okay u tahay maasha allah, dabadeedna xaaji macow xoogaa xaggiisa ay ciladu ka jirto. maalin walba wax cusubaa maqlaysaa. waxyaabaha cusub oo la maqlaa waxay tahay waa xagga nafaqa darrada. dad badan ayaa intaa uun ciishay, cilad kale ma qabaan. 10 sano ilmo may dhalin, 15 sano ilmo may dhalin. ilaahay baa bixiyo, waa dadaaleen, waa isla tacaaleen, dhakhtar way u tageen, laakiin isbedelka qoyska may sameynin. marka barnaamijyo badan oo cusubaa soo socda oo braniyo insha allah. dhinaca whatsappna inaa ka aragteen waa umaleyna. arrimaha qoyskaa laga hadli doonaa hadduu ilaah yiraahdo. talooyinka dhageysa insha allah, hadday wax kaa anfacaan arrinka wax ka bedel. marka isxisaabi, aniga gurigaaga ma joogo, marxaladaada ma ogi, waad nala soo fadhiisatay, saaxiibaa noo tahay, waa iswareysaneynaa. haddaan wax kugu dhaanana waa kuu sheegaynaa, hadday waxay kuu saxsan yihiin waa alxamdulilah, dhib ma jiro, noo soo dhawow adiga. waxyaabaha qaarkood oon dadka loo sheegin waa anfacadda iyo cuntada la qaato. dhaqtar kasta haddaad tagtay oo diyaarad raacdo oo adduunyada dhinacyadeeda kusoo wareegtay, waxaa laga yaabaa in aanan jadwal wanaagsan cuntada lagaa siinin. halkaas waa marka daamijku halka uu ka jiro. nin walba wuxuu cuno ciidamiyaa waa warkii oo lasoo koobay. soomaali maasha allah hadalkii kooban ee warka ku dhamaysay. rag badan oo lagu dhagay waxaynan haysanin cararayaal ama isbaamo ama shahwad wanaagsan ama biyo wanaagsan oo healthy ah. marka ninka raggaa lagu yiraahdo waxaaga ma shaqeynayaan, aada u niyad jabaa. haddii sida lagu yiri oo kale gabadha ukuntaada ma shaqeynayso. marka awlaada ilaahay baa gunto, waana run wixii la sheego waxbaa ka jiro. caafimaadka oo dheelitirana in lala yimaadaa waa muhiim. marka waxa caafimaad darrada keeno, waxyaabaha infectionka gudaha keeno, sida laysku nadiifiyo, fikradaha u wanaagsan dadka isdiyaarinaya inay isticmaalaan, kulligaan ka hadli doonaa intii aan ka kaseyno insha allah. marka waxyaabo badan ayaa isi soo hoos galo. waad aragteen nolosha markii la raacanayo waa iska yara kulushahay. dadku waxay ka shaqeeyaan hadba wixii markaas ilaahay calaf uga yeela shaqo. ragga qaarkood ma carari karaan biyahooda because wax cunto nafaqalana ma qaato. kurbo iyo adduunyo ka daba orod iyo qarashka soo galo yar iyo waxa laga rabo badan iyo wax badanaa ninkii maskiinkii dhaamajeeyey. marka isku roon ma ruqataa layiri, isku roono ma ruqde. ninkii isla tacaalo ee qalbigiisu degan yahay, ee mas-uuliyadiisa qafiif tahay, ee farxad haysto, ee baarinimo haysto, ee duca haysto, ee anfacad la cuno wanaagsan haysto, macquul ilaahay idankiisa inay cararayaasha u shaqeeyaan ayagoo badan oo millions inay u shaqeeyaan insha allahu khayr. meesha gabadhaba la yiri haddaad farxad iyo hurdo iyo raaxa iyo hadal macaan iyo hadiyad iyo adduunyo khayraad ilaahay aad barido, ugxaantaada way kuu kobci karaane isla tacaal. marka arrinkan laga hadlaayo oo la leeyahay infertility, ukuntii oon shaqaynayn ama biyihii oon shaqaynayn, waxay ka taagan tahay waa jirkaagaan wada shaqaynayn. caafimaadka guud markay wax ka qaldan yihiin ayaa caafimaadka qaasna
wax ka khaldanaadaan. dhib kale ma jiro, qofku waa inuu saas u ogaado. marka iyadoona laguu sheegin waxa kaa khaldan iyo waxaa u baahan tahay oo micno ah, iyo insha allah waxaad u baahan tahay oo fikrad ah ama nafaqo ah, ayaa warkii waxaa lagu soo gabagabeynayaa da-aa ku hayso iyo menopause gashay iyo xilligii la dhalmo dhigaya joogtaa iyo damage fara badan aa jiro. ilaahayna daalac kale ku raacan inayna ku dhihin caafimaadka guud baaba xoog isku dardaro qaliimo kale iyo howlo kalaaba u baahanto cilada kale aan aragnaa. waayo sheekadan waa sheeko qoto dheer, sheekada isdabiibka waa sheeko aad u qoto dheer. allaha fududee waa sheeko u baahan inuu qofku fariisto, nasto, ilaahay baryo, tartiibna wax u fahmo. isku roonaashada laguu sheegaa waa isku xilasho. insha allah wax allaala wixii la cunay iyo wixii la cabay iyo wixii daryeelka ku habboonaa waa inaad iskula xilataa si markaas arrimahaada ay u kobcaan, ay nafaqo u helaan. marka waa idi salaamaa, soo dhadhawaada. halkan waa dabiib iyo dadaal. welcome khayr iyo farxad la soo dhadhawaada. sheekadaana waa sheeko adinkana lii wado inta halkan fadhido ama intii hore u fadhin jirtay. awlaad khayr qabta oo saalixiina allaha idin gunto oo allaha gunto. gunudka laguu sheegaa waa wax toos ahoo jiro. sheekada marayna israacaynin, allaha israaciyo. waxaa la yidhi hooyada waxaa laga soo sarifaa ama informationka ka imaanaya DNA-geeda waa 23 chromosome, aabuhuna waa saas oo kale. amarka ilaahay markuu informationkaas israaco DNA-ga ah, ilmuhu waa guntamaan. markay guntamaanne hooyadii jirkeedii nafaqaa laga rabaa. marka meelo badanoo waxaa jirto dhakhaatiirtu ayna kaala hadli karin, sida distresska oo kale ama arrimaha cadibaadda, isciilbidka, uqdad caloolka, dhafarka, waxyaabaha fluidka ama qoyaanka jirkaada ku yar ama qaab aan wanaagsanaynba aan cabno, sida qaxwaha iyo kafeega iyo waxyaabaha ugxaanta dhaamajeeyo. hawsha faraha badan leh, dhididka faraha badan leh, inta la dhidido la ordo haddana aan jirkii relax la siinaynin. marka jirka hala nasi siiyo. wax walba waxay rabaan qiyaas. cayil yar hadduu ku saaran yahay qiyaasaa iskaga ridid, meelaa lagaa rabay inaad noqotid. micnaha haddaa fahmi weysid inaad tartiib wax kuu faasii u heshid, lagaaga sheekeeyo oo laguu sheego waxa kuu roon insha allah. isbedel anfacad aad samayso ood naftaadii iyo qoyskaagii iyo aada u roonaato. marka labada qof oo isku xaaska ah ama guurka ka dhexeeyo isku xalaasha inay aada isku ogaadaan waaye. sababta oo ah marka saan oo kale awlaadu soo daahdo ama mar walba ay soo dilmayaan, waxa qaldan ilaahay baa garanaya. itixaanka allaha qafiifiyee in tartiib laysku maslaxaa la rabaa. koow la duceysto oo qur-aanka ilaahay laysku aqriyo, ilaahay talada loo dhiibo. labo isku roonaasho in la bilaabo iyo isku xilasho. wax walba waxa kale ay ka qiimo badan yihiin ama ka kuwaalitisan yihiin in nafta lala jeclaysto. wax badan ayaa isku magaca. hadda cuntoo kale waa iska muujad. maanta haddaad isla joojiso wax la shiilshiilay waa cunto. cun laguma dhahaa ma lagugu soo boodayo. dadka hortoodaad ku daaqi kartaa wax saliid raagtay lagu soo shiilay adoo ka raaliyaa daliiqataa. marka fertilitigaaga markaa ka hadlaysid wax badan waa inaa gacan ku hayn ka dhigtaa. waa adigay sirkuu tahay. dhakhtarka intuu kula soo fariista meel kuuma sheegayo. niyow cuntada iska bedel, niyahow jimicsi samee, niyahow seexo, niyahow ha qaylinin, niyahow naftaada wax fiican u xilo ku dhihimaa. waayo shaqadiisa u gabaa maalintaa isku roonaato ood caafimaadkaaga gacanta ku qabato. waayo shaqada dhakhtarka waa inuu qof bukaa wadwadaa. dadkuba hadday wada baanteen ay caafimaad qabaan, yaa la wadwadaa adiguba isweydii. marka naftaada u nax. dhakhtar haddii loo tagaa waa un baarbaaristaas u tag. haddana wax badanoo
nolosha laga fahmay dhakhtarka waaba laga maarmayba. marka dad mahmaha ayaa waxay dhaheen qofkii xabad tufaaxa maalin walba cuno dhakhtarka uma baahdo iyo wax noocaas. marka waxaa laga wadaa in yar oo anfacada haddii ku soo gasho jirku waa maskiin waana baari, ilaahay amarkiisa maasha allah wuu iska bogsoodaa. marka adigana ha iska hakranin insha allah. midda kale annaga dhaqan waxaan leenahay ma cuno. rag badan waxaa lagu soo eedeeyey wixii waxtar la markii loo keeno inuu boodo oo yidhaa iga dhaaf, waa cunto ciyaal, ma jecli, maxay tahay wax wada cagaaran, caawa qada caadiya, caawa quraac caadiya, maxay tahay waxaan saxanka ma ubaxaad soo saartay, waa maxoolaad imudii wax lamid ah. gabadhana waxay ugu xilatay ilaahay inuu uur siiyo ay maaragtay ugxaanta kobciso asna caawiso, nafaqadaasna ay maaragtay ku rajaynaysa ilaahay idankiisa inuu ilaahay awlaad ku risaqo. marka ha laysku sabro, ha loo sabro arrimahan. waa la koriyaa, ajnabi iyo soomaaliba waa la shaqeeyaa, inta alla ugu talagalayna waa koriyeen ugxaantoodii iyo soojka isbaamihiisii ama biyihiisii. waxaase korin karo insha allah dad u soo tacasirtay oo u soo qabagashtay inay wax fahmaan. marka micnaha fahan, mararka qaar waxaan arkaa anigoo video saan oo kale clip ka soo hadlay ay gabdhuhu leeyihiin wixii la cunaayana keen. waxa la cunaaya waa wixii dhulka ilaahay ka soo baxay. suuqa tag, wixii qudaara gado, wixii furuuda gado, tartiibna insha allah barasho u bilow. hal kelmad haddaa fahantid barashadaaday ka mid tahay insha allah. cuntada waad maqashay dadka u daran waa tan la shiilay ee saliid caday lagu shiilay. maxaa sameyna marka isku roon haddaa tahay? waa dhaqi, waa huurinaysaa. huuris waa taqaan sooma? waa steamka, sida steamka u sameynaya ama stir fry camalaa ka dhigaysaa, taawaha ku gidgidinaysaa. marka cuntadii waxaad rabtaa inay taagtaaga noqoto, aynan ka dhimanin nafaqada insha allah. cuntada fitamiinka xambaarsana ugxaanta kobciso, biyaha soojkana kobciso. hadalku waa hadal dad waaweyn, qofkii meeshaan fadhiya ilaah weyna waaxide xariga dhagaha gasho insha allah. marka khayr allah idi siiyo. dhirta qaar aaday u kobcisaa ugxaanta, siday ugxaanta u kobcinaysay xaaji macuuna hooshiisa u kobcisaa. marka adaasa lagaa rabaa qiyaas yar inaad isku duduwato haddaad raajicinaysa uur iyo haddaad qaadaba. waayo waxaad adigu taraysid ciidankaagi waa waxaan mogta koolkooliskaaga ama nafaqaynta naftaada ayay ku hirgashay howshaan insha allah. marka isxisaabi, cayil hadduu jiro si dabiiciya u rid insha allah. damage haddii lagu sheegay ugxaantana si dabiiciya u dhabagal arrimaheeda. maxaa ka qaldan makaanka? makaankii waa kanaa, nafaqou rabaa. daawooyin waxaa jira maasha allah loogu talagalay hagaajinta gudihiisa, laakiin daawada keligeed wax ma tarto. waa inaad nafaqooyinkaana u diyaarsataa insha allah. waayo gudaha markaa ka qallalan tahay wax ku soo qooyaad rabtaa. marka makaanku waa sida geedoo kale, ubaxaan la waraabina eri yaa ma qurux badno. marka maxaa ku waraabine? nafaqo, wixii dhulka alla ka soo baxay. midda kale salar ahaan u qaadataya iyo cuntadoo bislaata ku kor darsataya iyo cabitaan ahaan u qaadatayaaba waxa gunta kaa soo qoynayo waa wax qoyan. hadda dhaladoo kale ama qoyaanka hoose nooca markuu ugu qurux badan yahay gabar walbana ay ku faraxdaa. nooca kale lama fiirin karo, lagamana hadli karo. marka anfacad fiican inaad labadiinaba sheer garaysaan ayaa labadiinaba caafimaad ku heli kartaan insha allah. daawooyinkuna ka raali ahaada, dadkeena waxay uga cararaan waa yara qaali, qaarkood ma wada aha. cuntaduna isku duduwashay kaa rabtaa. marka nafta marka loo roonaado waa qurux badnaataa, waxqabadkeedana ilaahay idankiisa waa hirgalaa insha allah. laakiin hay-adna waxaa lagaa rabaa
inaad aroorta hore quraac wacan cuntaa, qado wanaagsan samaysataa, casho wanaagsan samaysatiin, reer isku duuban noqda. ilaahay idinkiisa sidai arrinka idinkugu hirgalo. heer waxaa lala gaaro reeraha soomaaliyeed la yiraahdo xataa beeris ma gashaan. beeristuna waa maxay? waxa lagaa soo qaadaya waa ukuntaada un iyo biyihiisii. bannaanka haddii lasoo dhigo waxba ma tarayaan. marka mararka qaarkood markaad adigu si tooso nafaqo u qaadanin ay kuugu suurtoobi weysay, IVF aa la aadaa. waxa IVF aado qof isi soo nafaqeeyey, 2 qofoodoo isku soo roonaatay, habbi ah, ducaysatay, isjecel, nafaqaysatay, ku kalsoon jirkii. marka cilada dhacday oo si dabiiciya loogu qaadi waayo waa maxay? horta kow maba qornaba, waa qornaa wayse. ilaahay goorku kuu suurta gelinayo waa goonideeda, laakiin hadda hakadaa dhacay. haddaadan adigu sanad iyo ka badan aadan nafaqo iska daba wadin, horta jaaniska ugxaanta lagaa soo gurayo waa sii IVF tag. adigoon caadadii haynaad isgeynaysaa, adigoon dhaladii hayna isgeynaysaa, adigoo aanan haynin ma aragtay ugxaan wanaagsan oo joogto usoo baxdo. marka meeshii lacag lee kaa baxaysa moogdo. horta bal marka hore ku kalsoonow marxaladiina, caafimaadkaada guud, cayil hadduu jiro, caata hadday jirto, dareemuhu hadday yaryihiin, caadadu hadday maqan tahay, maxaad ka dooni? caadaba ma hayside, waayo lacagtaada u firdhine. lacagtaada gooskaaga bar, shilinkaagii gooskaaga waa laisbaraha la dhaha. naftaada u hadiyee, naftaada nafaqee, suuqa tagay, wax walboo wanaagsan soo qaado insha allah. laakiin intaad lacagta uruurido dhakhtar haddaa u geyso, xoogaa processa lagu furo, lagu wadwado, iskaana iyo wax lagula dhaco, dabadeedna howsha kuu hagaagi weyso, lacagtaas kaa khasaarayso, tigid iyo hotel iyo wax kaaga baxayo, ina adeera adiga quudo. suuqaas ha ka dhammaanin. caleentii la sheegay, bocorkii la sheegay, qudaartii la sheegaba insha allah soo qaado. horta bal dharag, gunta ka qoya labadiinaba. ma maraqa, ma caanaha, ma malabka, ma shaaxa, ma cabitaanka, ma quraac iyo qada iyo casho inta ka dhexayso. haye dhalooyinkaad aragtay siidad iyo waxa waaye biyo laysku darayo adduunyo. shaaxaanaad aragto waa nafaqo. 100 shaaxaa jirta, 100 siidaa jira, 100 kanaa jira. bal qoro oo baro oo doono oo cun oo cabo caafimaad insha allah. allah kuugu deeqee ku ceesh. fitamiinaadka jirka ka maqan oo dhan soo qaado, midba midka kale uu ka wanaagsan yahay insha allah doono. haddaa nagu cusub tahay nala joog, kursigaaga soo jiido, ha murugoonin, yaan la murmin, yaan la isqabsanin. heer waxay gaareen walaalaha qaar isdalaaqaanay kala tagaan owlaad la-aan daraadeed. ma tacabkaa la diidahe waayahee su-aala idi weydiiye. owlaada ilaahay baa bixiyo, ibni aadan ma haayo, dhakhtar ma haayo. dhammaantiin ogaada, daryeelkan iyo iswadwadkan, isnafaqeyntan iyo farxadaani damage ku gaaray oo cunto xumadii soomaaliyeed ku gaarsiisay ayuu kaa bi'ina. marka lasoo qaaday oo la qiyaasay waxaa layidhi oo ma shaqeynayo, waayo lagugu diiday. waayo adiguba cusbaad isla dhacday, maraq digaaga isla dhacday, saliid cadeeya isla dhacday, bur iyo sambuus iyo wax la shiilaad isla dhacday, bariis iyo baasta isla dhacday. haye baahiya haddaad doonto isku dishay, xoogaa gaasaa caloosha ka buuxo, cayilaa ka buuxo, saxaraa ka buuxdo. runta maa diidaysiin? runta ilaaha nagu jecele. jirku waa inuu saas maasha allah jawjaw noqdo, DNA-gaaga waa inuu dhagdhag noqdo. haye arrinkan lagu leeyahay waa qalqaloocaa iyo waa abnormal iyo hebelow, nafaqadaana ku filan insha allah. kalluunka ka ugu fiican, isbaarigaska, wax walba doono, jimicsiga samee. exerciseka waa xanuun, jimicsigu waa xanuun. murqaha dhanaa ku wada ololaa. nafaqooyinka murqaha doono insha allah. haye cabir doono insha allah. suuqa adduunkan soo galaa, waxyaaba idii soo gelgeli doona hadduu ilaahay yiraahdo. halkaa ka qoro, halkaa ka baro. haye cuntadaada u xilo sidii howshaada kalena dhagdhag u noqoto. xilashaa la rabaa, xilasho. annaga waxaad naga soo doonta dhiirigelintaas. anigu waa qaas, dadka qaarkood brivatean ugula shaqeeya, intana waa idinkugu imid. fiiri bal badarka hadda kiimo waxaa nafaqa ku daabacan.
seed walboo lasoo dhiga qiyaasna u qaadaa lagu yiri magaciisana baro micnihiisana baro insha allah adigaa lagaa rabaa inaad isku duduwato arrimahan oo dhan insha allah haye marka xagla fadhiyaa layiri xoolo kuma yimaadaan haddaad adigu meeshaa soo fadhido waxaa baratayna aad aqoon noqotid cuntadan fadhigaada kugu imaanayso ayuu nooca laga sameeyey shaaxyada fertility-ga loogu talagalo makaanka nadiifina oo jirka nadiifina sawjkana u roon sawjadana u roon fadhigaada insha allah allah kugu siiya ma kugu imaanayo waa inaad doontaa qudaaraha cabitaanada waxyaabaha bal fiiri cambuuladan sida loo qurxiyey brokoliyaha haadayo basal gaduudda haadayso bocorka kasii dhexaada cambuulo iyo bocoraa laysku dhex darsaday dadku waa isnooleeyeen waana qoreen waana barteen waana raadiyeen wayna isjeclaysiiyeen naftoodii jeclaysiiyeen marka adigana dadaalaa lagaa rabaa bun haddii la waayaa layiri bedelkiisaa la helaa noocaas haddaadan helaynin noocaanaa hele hadda soomaaliya raqi lagama helo miyaa sisin lagama helo miyaa ughaanta wax badan oo u roon oo kobcinaya oo qurxinaya ayaa maasha allah laga helaa wadankii amaba dibadaha laakiin waa inaad xoolo isku quurtaa waa inaad hawshan jeclaataa waa inaad hawshan insha allah daba dhigataa ma daba dhiganaye waa iska dhagadhagayna waa iska fiirsana haddaad tirahdo waqtiyaa socdo waxaa jirta maalin aadan dhakhtar hortegi karin da-du horey u socotay oo aad ka xishoonaysid inaad beebi sheegtid weli inta arrinkaaga la wadwado ood adiguna wadwadi karto dhakhtar haddaad u tagtana uunan kula yaabaynin hadda gabadhii 70 sano cagacagaysa hadday uur yeelato waa la wada yaaba haaw saad ku qaade waa la yaa iyagoo og ilaahay inuu sii karo hadduu soojo joogo waa lagugu dambaaba maba dhici kartaa lagu leeyahay because waxaa la ogyahay dadku isma wadwadi karaan dhakhtarka adigoo u jeedo inaad weli hawshaan wadi kartid ood isku roonaan karto hadalkaaga wuu soo afjaraa wuxuu ku leeyahay sorry waxba meesha kuma yaalaan in la waraabi karana waa kaa ilaalina oo la nafaqay karo waayo qof walba hadduu isdabaro dhakhaatiir badan waa ka canshaqa beelaa ku dhaca kumanaanka fadhigooda loogu geynaana ma dhacayso marka saaxiib maskaxdaada ka shaqaysay insha allah horta ilaahay bari iljini ilinsi allah kaa haayo ha daalin 40+ da-da gaartay ama dhaaftay waa lagu dhalaa raggii baa hadda la yiri waa weynaatay nimanka shahaado sharaf waxay wateen 100 sano hadduu jiro lagu yiri dhagtaa loogu dhibciyay bari hore waad dhali kartaa wiilal yaryar oo 30 iyo waxaa lasoo buubsadaa la yiri ma dhali kartid anaga tag xabad dhaqaaqaba kaagama jeedno guriga markuu tagane ismariskiisaa soo cunaa hadduu doono kii sigaar caba sigaarkiisaa soo cabaa haya canjeero yar laxoox yarisii baasta yar maqaayada sii mar sii orod soo orod iska kululow dabaal male jiim wala waxba male biyo badanoo la caba male isqaras bixin male in adeerka cufug waa dadaalaa waa shaqeeyaa biilow bixiyaa waa dadaal asigoo daalanoo meel isku rida waan ogtahay wiilasha ma ooyaan baby hadday ku dhacdo waxa waa ama waa qaracma stresska isdhaafina ama haddii kale bilcaan kale oo carara markasta dhakhtarka oo soo canaanto la yiraahdo meesha waxba kuma haysid muxuu bilcaan kaleba ka doonaa oo hawsheedii biilkeedii waxay isku madax saaraa waa khalaas gurigaaga fadhi distress.com dadkaba si kale ula dhaqan marka hortaa jira arrinkaas ogaaday isdabiibku waa yara hard annaga dhaqan toos uma lihin dabiib waa naqaanaa dadaal iyo dabiib waa naqaanaa laakiin iswadwadkiya xoogaa yar naga jiiree iswadwadkani laxa jeclow rabaa inaad laxa jeclaysato ilaahay idankiisa marka guushaas waxaa lagu gaari karaa sawjkii iyo sawjadiisa isku baariya oo saaxiiba ayaga oo wax maaragtay dabiiciya barto qorto raadsado wixii marka fahmaan isnaashnaashka iyo is-ogaashada waa wax la fahmo waxa markaa fahantid unbaad sii raadi kartaa u macaansan kartaa sii raadi kartaa dabiibka waa wax la raadiyo marka insha allah allah idiin sahlo xagga kheyrka iska dhiga isku rooroonaashada farxaday leedahay insha allah markaa shay walba magaciisa taqaanid micnihiisa taqaanid qiyaastiisa taqaanid nafta waa ugula xilataa marka xilashadaas yartaa hala dabagalo isku riixriixa ama isduugduuga insha allah jirka dhan sida uu gaaro nafaqada hurdo wanaagsan hela oo naacimo dig aa dhahdiin insha allah ka dharagtiin
hurdo fiican. arrimahan kalena ayagaa iska kori doono, iska ordi doono. midda kale intaas oo milyan aa laga rabay aa la leeyahay wiilasha, marka meesha kuma haysid waxbee minuskaad garaacda ee la dhihi maa kac badarkaan doonanayo wada fitamiinkaa dig isku sii. marka insha allah daawo wanaagsan oo dabiiciya oo maaragtay wada vegetarian doonta. insha allah on timena cuntada ku cuna ama xilli go-an ku cuna. midda kale haddaan xataa la heli karin xoolahaas nafaqada laga bixinayo, mid sameeya wax badanaa idiin firiya. wixii kuu firiya oo dhan horta soo dhacso insha allah, iswadwadka firiiga ah soo dhacso. kan labaadna xeelow rabaa. haddaba shaaxaad cabtaa, shaax madoobaad cabtaa, ku bedel shaaxa kaloo dabiiciga kow. haddaba insha allah qof qadsan ma jiro, ilaahay dabkeena ma damiye. waxaad cunto ku bedel waxaan kale. hadday extra qarash soo baxo ama qarash saa-ida uu soo baxane, waa iswaraabiskaagii adaa isku waraabinaya, isku quur. baabuur qurux badan iyo guri qurux badan baqacaad ka siisaa sax haye. marka cunto qurux badan adaa ku noolaanaye, bal raadso insha allah. oo ha ka dayrini dantaadii naftaadii, ilmahana ilaahaa qoro. haddii xataa la sheegay hormoonka waa isdhaafsan yahay, baalansigayaa ka dhumay, tartiib adigoonan iska waalin. hadda hadaad iswaashood xanaaqdood waxaba wada joojidood dhakhtarka carartood wax walba ka roortood guri isku soo xirto, hee maxaa kuu soo cadcad waayahe. waqtigunbaa sii soconaya saaxiibada qaaligayo. waqtiga allaha barakeeyo. naftaada wax la jeclaado ugu roon carada. naftaada jeclow insha allah. haddaa xaas tahayna sawjkaada baariyad u noqo. adiguna haddaad xaas tahay sawjadaada baari u noqo. baarinimada wax badan ayaa kheyrkeeda lagu helaa. baari isku noqda, ilaahayna wada barya. inta islaamana ilaahay u barya insha allahu kheyr. dantaada inaad jeclaysato waxba waxa kale ka qiimo badan yihiin, ka qurux badan yihiin. inaad raadsatana xaqaadu leedahay. naftaada xaq uma laha xanaano, xanaalaysa naftaada insha allah. waxyaabaha hormoonka baalansiga ka dhumana ha layska dhaafo. barnaamijkan hadda noo soo socday khilaafka qoyskani bal fiiriya. waxyaabo badan oo iska dhex mushaaxno waa wax khatar u keena hormoonka. ha la joojiyo, ha layska joojiyo intii la jooji karo. adduunyada waxa ugu adagaa maqlay afkaagood qabsataa. wallaahi been maaha, dadka qaarkood afkoodaa dambaajiya. xanaaq buuq muran eray hebel waxaas kan waa is eedeyn iyo isfaquuq caadi. marka mucaaradka minankaa noqonayna xabiibka minanka noqda insha allah. amuurtana kheyr allaha nooga dhigo. kun iyo kow jeerka raalli ahaada. wax waxtar leh oo aadan heli karin haddaad aragtoodan gada karin, ilaahay bari allaha kuu sahlo. ummadda inta roortaba waxay u rooreysaa dantooda wiil yar iyo gabar yarba, qof roon iyo qof kalaba. qof walba dantiisa u daydayaha u rooraa, adiguna dantaada u roor. taasuna waa wax adduunka darfihiisa ummadda dhan ay wada fahmeen. dadaa usoo dhoofo wadamo ama usii dhoofo wadamo ka fog si ay uga soo helaan dabiib. lagana yaabee haddaad ducaysatay inaa hoostaada ka heshid dabiibka. waxyaabaha qaarkood inaa idiin soo sheegay intaa idinku dhaamo way fiican tahay insha allah. allaha ii kasta waqtigaas. owlaad qaadista ilaahay baa horta bixiyo. isku dabiibka uur qaadistana waxa loo baahan yahay waa wax adiga kula yaalo, xataa free ku ah. ilaahayaad baryaysaa, cid kale oo haysa male. 100 dhakhtar oo top ah haddii lagu geeyo waxaaguba waa buuka haddii lagu yidhaahmo waa finish. maxaa dhakhtarka qaaligaa ka raadisa ii sheeg adi. haddaad 300,000 oo dollar haysatay muu malayna inaa hal beebi ku helaysid. waa may, ilmuhu waa dahab, ilaaha bixiyo. qofkaan haysaninni ilaahay baryadiisa kaaga xigto iyo nafaqadaada insha allah. haddaa calaf ku leedahay ilaahay ha kugu ammaanaysto. ilmaha ilaaha nagu ammaanaysto, annaga ma hayno. dadaa iska celinaya inay dhali karaan in kale, inay dhalaan ay u maleeyaan, marka waa iska celinaan, waa dambaabaan. qof walbo saas sameeyo duceyso, ilmaha ilaahay baa bixiyo. dadaan iska celinaynaan dhalaynin aawo. marka waxaa la leeyahay birth control oo ilmaha lagu kontroolaa. ilmaha ilaahay baa bixiyo. wax kasta haddaad cuntay, wax kasta haddaad sameyso, waana dhiiq la dhalayn haddayna qornayn. mararka qaar nimanka markay gabadhu tiraahdo waa isdabiiba,
wixii iyada ay sameynayso boodbood iyo jimicsi waxba ma dhaho. laakiin hadday tiraahdo nafaqaan rabaa iyo dabiib iyo dadaalaan rabaa, laga yaabo inuu xaajimacuu boodo asoo og inay kafeegana dika siinayso, wax macmacaan iyo waxaasna ay dika siinayso. waa boodaa, wuxuu u boodaa weli kumaunan helin wiil cad iyo gabar cad dadaalka ilaahay baana haaya ilmihii. marka wuxuu leeyahay ilaahay hadduu ku siinaa waad helaysaa, naga fadhiisa meel. iyadiina waxaan lagama bedelin oo kafeega iyo shaax iyo qaxwo iyo wixii lagama bedelin. marka iska daba oraday ku noqotaa reerkii. laga yaabo inuu odagaaga saxsan yahay hadduu ku yidhaha naga fadhiisa dhaqtari wax ma aadayno, inuu kaaga saxsan yahay. waayo dadaa jiro dhaqtar u tagay oo dhaqtarkii makaankiiba ka tuuray. marka wax allaala waxaad qabanaysid u duceyso. hadday kheyr kuu tahay allaha ku siiyo, hadday shar tahayna allaha kaa haayo. wax la cuniyo wax la cabana ilaahay kuuma waayo, daawo allaha kuugu daro. dhammaanteen waa laysku itixaami karaa wax la cuna mogta, dhinacaasaa lagaa itixaami karaa. nafaqadii iyo dawadii iyo wixii dhan hakaday kaa gelaan, adaa lagugu fiirinayaa iimaankaaga. marka allaha noo sahlo, haddaan cunano allaha noo daawe, aamiin yaa rabbi. waxyaabaha daamajiya ugxaanta iska ilaaliya sida kaafiinka oo kale. dad badanoo hadda waxaa jira kafeega caba xataa oo sistamyo kale u cabaya isqurxinays caateyniyo. meel kuma ogi kafee ugxaan kobcinaa, soo maskaxdaada ka shaqaysi. iscaateyn haddaa rabtana mid kheyr qabta allaha ku siiyo. aadaa idii salaamaa saaxiibada qaaligayo. yaan la iloobin xaaji macuune in la dabiibo, la nafaqeeyo, midda kalena wax la fahansiiyo. laga yaabay sawjkaagoo wax akhrin karo oo maasha allah sheegaa tiraahda noo fiiri waxtarkiisa, aaladda intuu saa ugu qoro faka soo siin kara waxtarkiisii, asoonaba akhrin inuu buuq kugu furaa dhici karta. because akhriska naftirkiisa waa wax laysjeclaysiiyo. indhaynta iyo dhagadhagaynta iyo kula ogaashada waa wax laysjeclaysiiyo. midda kale waxaa layidhi nin faashaayaa qorayoo gurama waayo. daqli fiican reerku hadduu haysto isnafaqaynta waxba kuma aha. dadku waxay diidaan isnafaqaynta markayna qarash lahaynin. adoona ninkaaga ka lulanin, oonan buuq isku furin, oo guriga dhanba bus iyo buuq ku furin, tartiibtaada haga dhigo. haddaad maanta kaarooto yar iyo tufaax yar soo gada kartid, soo gado, isku jarjaro, dhag caana garoor yar dhinac ka saaro, iska cunbarakaysa intaadaas. loos yar haddaa heli kartid kuu kor firdhiso, shidanaaba shidanba intaan ilaahu daawo iigu dardheh. marka gurigaaga buuq iyo uqdad iyo maaragta ha iska gelina, habaar iyo eray iyo ha iska gelina guurkaaga iyo gurigaaga. ilaahay bari, biyo cad adoo cabaa ilaahay mataano kugu sii karaa. taasna waxaad kaga quusataa baadiye dad joogoon badar iyo aan haysanin, maxaan ku rahaa dawo iyo wax walba aan haysanin, ilaahay waa siiyaa. ninkuu ilaahay siinaana meel walbuu rabbiga kula rasaqa raxmaanka ah. marka ducada lee badso, odagaagana ka duceyso, icaawi dheh insha allah, isdhiira geliya labadiinaba. hayee cafiye masaabax, I hope inaa ka hesheen barnaamijka. waa inoo ika kale hadduu ilaaha yiraahdo. asalaamu calaykum.